nimanka khawaarijta duurka ku jira warshadii soo saartay waa wahaabiyo mabda wahaabiyinimada waa khawaarijnimo khawaarijnimada saxda ah oo Soomaaliya ka jirta fikirka ay ka timid waa fikirka Maxamed bin Abdul Wahhab dhimayo القاعدة وخوارج مليه حركة الشباب المجاهدين وخوارج مليه قرآننا أرنتا أيضا أسوء عديو أيهم خوارج بهدي ليلة كما ديرنكر هذه مسألة صعبة جدا ولي إذا مرك أحكامتي خوارج تهلصي ودي جودة هلا بنيس وقال هذا الرادين يزعلوه كلمة سؤالي ده وين عندما واحد بلي العقبة ولا إنسان هذا صوه هشان صوابا وغار فربنا بالغيا بابا إني هذا فرندولين هيان سيد 2 مليون وقتان أو دولار كل ذلك وحي كبلان هدي لي هذا وخوارج بحت حتى هدي لي هذا مسلم على الراجح سيدي جماهير تقوم ضد مسلمين nimanka khawaarijta duurka ku jira warshadii soo saartay waa wahaabiyo mabda wahaabiyinimada waa khawaarijnimo diinta islaamka waa khawaarij banaanka uu ka jooga weeyaan qofkii raacsan oo xaq u arka Maxamed bin Wahhab iyo Ibn Taymiyyah ka sii horeeyay wixii ay qoreen oo kutubtooda ku qoraa qofkii xaq u arka ama u arka ayagaas in diin laga qaadan karo waa khawaarij waa in mabda'u dagaalku noqdaa oo waxa weeye si fiican dagaalka loo galaa arintaas arin mabda'aas lagu beegsana waa inay noqotaa haddii la yiraahdo khamrada waa xaraam qofkii lagu arka waa la dilaya waa in la dabar jara dalka laga nadiifiya lana yiraahdo ka waran warshada soo saartay yaa la taaban warshada khamrada soo saartay yaa la taaban haddii la yiraahdo ka waran qofkii lagu arka in tilaabaha laga qaado nimanka khawaarijta duurka ku jira warshadii soo saartay waa wahaabiyo mabda wahaabiyinimada waa khawaarijnimo hadeer wadanka dhibaatada weyn oo ka jirta waa khawaarijta khawaarij baa Soomaaliya baabi'iso gubtay oo meel walba dab ku daartay daqiiqada ayay waxay ku dileen 1000 qof ku dileen meel badan oo wadanka ka mid ah ay haystaan oo ay dhibaataynayaan dhibkoodii baa hadeer socda waayahan waxa la wadaa in lala jihaado oo nimankii laga hortago oo waxa weeye la leeyahay dagaal ha lala galo dadka shacabka ah qolo walba meesha ay joogto ha kula dagaalanto khawaarijta sax waxa la doonayaa marka jihaadkaas inuu noqdo jihaad mabda inuu noqdo loo baahan yahay inuu mabda noqdo oo uusan ku khaas noqon wiilka duurka ku jira kaligiis wiilka qoroga haysto duurka ka jira kaligiis inuusan jihaadkaas khaas ku noqon oo mabda noqdo haddii la yiraahdo khamrada waa xaraam qofkii lagu arka waa la dilaya waa in la dabar jara dalka laga nadiifiya lana yiraahdo ka waran warshada soo saartay yaa la taaban warshada khamrada soo saartay yaa la taaban haddii la yiraahdo ka waran qofkii lagu arka in tilaabaha laga qaado nimanka khawaarijta duurka ku jira warshadii soo saartay waa wahaabiyo mabda wahaabiyinimada waa khawaarijnimo diinta islaamka waa khawaarij banaanka uu ka jooga weeyaan qofkii raacsan oo xaq u arka Maxamed bin Wahhab iyo Ibn Taymiyyah ka sii horeeyay wixii ay qoreen oo kutubtooda ku qoraa qofkii xaq u arka ama u arka ayagaas in diin laga qaadan karo waa khawaarij waa in mabda'u dagaalku noqdaa oo waxa weeye si fiican dagaalka loo galaa arintaas arin mabda'aas lagu beegsana waa inay noqotaa madaarastii ay soo saareen hal qof oo ay cilmi sharciya baran ma jiro 30 sano dalka Soomaaliya burburka ku jiray hal qof oo caalim ah oo diinta darsayn kara oo nimankaas soo saareen ma jiro wax alla wixii madaaristooda ku jiray oo ay wax bareen wuxuu noqdeen waxaas qarxinaya oo dadka gaalaysiinaya oo dhiigoodii maalkooda xalaalaysanaya wax alla wixii madaarista ka soo waxaasay noqdeen marka barakallahu fiikum laakiin waa la isla fahmi doona wali lama fahansano waa la isla fahmi doona waaba waxay jirtay annaga kaliya khawaarij dhihi jirnay markaas qolada dawladda iyo siyaasiyiinta iyo waa ka xishoon jireen inay khawaarij yiraahdaan hadeerna waa la isugu yimid wali hadda waxba dhiman habeen dhaweed mar oo madaxweynaha hadlahay oo dad shacab la hadlay wuxuu yiri anuu ma kala jeceliyo suufiye iyo salafiye iyo ma kala jeceliyo hadeer kii ka soo baxan xil baan u dhiibaya marka madaxweynuhu shaqo u taalo
shaqa u taalla inuu kala barto weeye oo kala ogaado oo arrintaa ku baraarugo duusa ku baraarugin haddee waa la soo gaari doonaahe allahna gaarsiiyo insha allah qof aaminsan aniga ma ahan inta kale oo iga soo haray dhammaantood waa wada gaalo sharci islaam oo qaba iyo diin islaam oo qabta lama arag maxamed bin cabdilwahaab ninka la yiraahdo oo aabihii cabdilwahaab qaadiga najdi ahaa ee sulaymaan bin cabdilwahaab walaalkiisa la dhashay ay karantiileen oo maxamed bin sacuud waddanka sacuudiya ee dhulka najdi ka helay ka bacdina ummadda islaamka xilligaas joogtay afarta madhab islaamka oo shaaficidii xanaabilidii maalikiyadii iyo xanafiyadii isku waafaqeen inuu yahay daalan mudillun nin lumay ummadda ilaahayna luminaya ee isku raaceen afkaartiisii guracaneed oo dadka lagu gaalnimo xugminaya lagu leeyinay lagu gaalaysiinayay dadka xambaarsan haddii ay ku khawaarij aysan noqon cidda khawaarij noqonayay ta waxaan tusaale idin kaga filan qofkii raba inuu dadka kala barto xarumaha qolo kasta ay joogto baa la tago dadka maxaa loogu akhriyaa wahaabi wixii ayaga ka soo haray waa gaalo xukunka agtooda yaala waa gaalo kitaabkan la yiraahdo ad-durar as-saniya oo iskala imaam dahlaani ayaa soo uga sheekeynayay nimankan wahaabiyada ah oo waliba ay ka farcameen nimankan khawaarijta la yiraahdo oo wuxuu ku soo koobay wal haqu 'inda al-wahabiyyati ma waafaqa ra'yuhum wal baadil 'inda al-wahabiyyati ma khalafa ra'yuhum xaq waxa la yiraahdaa wahaabiyada wixii fikirkooda waafaqa xaqay u yaqaaneen yiri wixii fikirkooda ka duwan oo ka hor yimaadaan baadil u yaqaaneen yiri khawaarijnimada saxda ah oo Soomaaliya ka jirta fikirka ay ka timid waa fikirka Maxamed bin Cabdul Wahhab meel kale ka raadimaysid haddaad rabtidna qofkii raba hadda ana ka tusaa haddii kutubadooda laga waayo takfiir waxaan sheeganaa beena kutubada haddii takfiir laga waayo oo mad in lagu gaalnimo xugmiyo haddii laga waayo beenaan sheegno qofka haddii lagu gaalnimo xugmiyana wax ka dhalanaya waa maxay qofka haddii la gaalaysiyo dhiiggiisa bannaan xoolihiisa bannaan cirdigiisa bannaan waan saddexda shay nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam nimanka marka duurka ku jira waa ilmo yar duurka loo diray laakiin aabayaashii waxa kamid ah nimanka hadda dadka magaalooyinka jooga oo xarumaha maraakiista u furan yihiin oo dadka waxaan baraynaa ku haya oo 24 saac ummadda kale ayaka aan ahayn sidii loo gaalaysiin lahaa qof aaminsan aniga ma ahan inta kale oo iga soo haray dhammaantood waa wada gaalo sharci islaam oo qaba iyo diin islaam oo qabta lama arag xarumaha ay leeyihiin oo ku yaala magaalooyinkana inay ka wareejiyaan xagaad ku aragtay warshad dhan oo wax alla wixii xumaan ah ay soo saarayso xumaantii goobay ganacsiga la dhigaleeyaha lagala diraro ayadina aan la xireynin war maraakiisda ayagu ay leeyihiin xarumaha ay leeyihiin haddaan la xirin waxaan shaki ku jirin mabda'an inta duur ku jirto ku dhamaan maayo geedka salka laga jira marka rabo in la qalajiyo xididada dhan loo siibaa laakiin haddii la laamaha kor laga jiro muddo ka bacda kii baxaa la yiraahdo haddana geedkii waxaan leeyahay dadka madaxda Soomaaliya maanta talada haya hadday rabaan fikirkan khawaarijnimada nimankii uu ka yimid Soomaaliya dhooban yihiin baan idin sheegi ma qofkii horta aaminsan maanta in khawaarij iyo wahaabi inay laba kala yihiin laba ma kala aha hadda anigu ku iraado sheeqayga wax isoo baray aniga labaan kala nahay meega rumaysanay sheeq aniga wax isoo baray wuxuu isoo baray waa wixii uu ii akhriyay bari ka maalin waxaan ummadda ku hagayo ummadda aan raba inaan u sheego inaan u gudbiyo waa wixii isoo baray meel kasta oo dagaal lagula galaa nimankaas waad aragtay kutubada ay sitaan oo goobtaas uga cararaan waa Fathul Majid waa Siyaanatul Insaan waa Usuul Thalatha kayfa nafhamu tawxiid ka shubahat war kutubadoodii oo wahaabidu ay dadku u akhriinaysay wataan haddana waxa la leeyahay nimankaani oo nimanka ay leeyihiin anaka nagama imaan ayaan dhawada markii shirki weynaa culimada Soomaaliya la isku keenay bilaadda Soomaaliya iyo khaarijkaba dal iyo dibadba la iskaga keenay oo dawladda ay tiri wax alla wixii magac culimo sheegta dhammaan hal isugu yimaado meeshaas oo nimankan xukuma la soo saaro markii la isku raacay inay khawaarij yihiin dhiigoodu bannaan yahay in la dirro shariicada islaamka ay banaysay markii la sheegay rag culimada meesha ka hadlay waxa kamid ah rag yiri war kutubada akhristaan waa kuwan waxaad moodaa dadka qaar inay iska indhatirayaan waxa la yiri war ha sheegin u kaadi haddaan la sheegin sida cudurka qofka haya meesha uu ka hay haddaan laga daaweyn meel kale in laga dhayo ama laga waxay waxba ka soo bixi maayaan fikirkan la yiraahdo khawaarijnimada Soomaaliya aan joogno xagoo ka yimid asalkiisa
waxa tusaale yar kugu filan waxa la rabaa shayga marka la tusaale aad rabtid inaad u qaadatid inaad ogaatid horta shayga meesha salka uu ku hayo salka wuxuu ku hayaa xaqiiqada marka la yiraahdo wuxuu salka ku hayaa kutubada hadda aan magacaabay oo ah usul thalatha kayfa nafhamu tawhid kashf shubahat iyo muxuu ahaa siyaanatul insaan iyo caqiidatul wasitiyya iyo fathul majid kutubada noocaasa dadka akhristay iyo dadka loo akhriya fikirkan ka yimid fikirkan meel cilla kama imaan duruq suufiya kama imaan cid kale kama imaan Soomaaliya dadka islaamnimada magaceeda ku abtirsada maanta waa saddex qolo waa wahaabiyada faraha badan ama jadiidiha lagu magacaabo ama salafiyaha la yiraahdo ama ha lagu magacaabo ictisaam ama magacyo kale loo bixiyaa waa qolana waa qoladan shiicada ah oo saxaabada rasuulka daacniga lacanadii balaayada ula taagan qolana waa qoladan kale duruq suufiya la yiraahdo nimankan khawaarijtu ay ka farcantay oo mabda'oodii tadbiiq ku sameeyay doorka ku jira magaalooyinka jooga ummadda qarxiya waad aragtay ummadda Ilaahay say u baabi'iyaan shacabka Soomaaliyeed inta u geysanaan tusaale kugu filan meeshay ka yimaadeen waa kutubadan meel kale kama imaan kutubada waxa ku yaalan hadaad aragtid saddexdan tawxiid oo la leeyahay dadka lagu faafinayo hal la baro la leeyahay ujeedkiisu wuxuu yahay in la yiraahdo qofkii aan saddexdan aaminsanayn diinta islaamka banaanku ka yahay diinta islaamkana sana wada ognahay oo shariicada islaamka noo cadayday dadka mashaayikhda aa'imatul islaam oo diinta looga dambeeyo salaf iyo khalaf intaba ka dhaxaysa diintii aan ka baranay hal tawxiid aan ahayn ma lahan tawxiid labaad iyo mid saddexaad midna ma jiro